السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا دمان ومد السلام ملك استيو joogto waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله salaanta islaamka waan idinku salaamayaa bacdi salaam waxaan ka hadlayaa sidii aan horeba Englishka translate u sameyn jiray YouTube-ka soo dhigdhig jiray ayaan hadda mid translate 10 u sameynayaa maanta. Ilaahay baa mahadle caafimaadka iyo nimcadana siiyay imkana noo sahlay inaan 10 soo gudbin karno ama aan xoogayga caafimaadkayga wuxuu baa u taam yihiin arrimuhu dhag yihiin wax walba isku beegan. Ilaahay baa mahad alxamdulillah. Aynu galno hadda tahay qof wax bartay Englishka barta ama ardayga ma samayn kartaa in naftaada ka warbixiso ama waxa la yiraahdo personal information ma samayn kartaa naftaada ma ka warbixin kartaa waxa magaca tusaalahan magacaygu hebel waxa ku nool halka xilligaasaan dhashay waxaan qabtaa saasaan ahay kan kalaan ahay waxa ila nool cidaa waxa la rabaa in aad information in aad naftaada horta marka hore ka akhbaar bixin karto Englishka marka aad baranayso. Ana waynu gudbaynaa first my name is Khaire. I was born in Hargeisa. I was born in 1988. I am growing here. I'm grow up here. I'm single. I live in Hargeisa and I live with my parents. My family is an extended family. We live in together. My grandfather and grandmother, my father and my mother. Also, I have 4 brothers and 3 sisters, and I have 5 cousins, but I don't have any money uncles. I also have 5 aunties. They live in Bro. Second, I am a student here. I'm learning English. I'm learning English at the Abrar College. I wake up early and I brush my teeth and take my ablution. I go to mosque and pray there. After that, I return my home. I eat my breakfast and prepare my school. I collect my school's TVs, books and business, and I put on my uniform and I go to my school also to learn subject. My favorite subject is computer science because that's my hope. That's my hope. Taasi waa rajadayda. Hope waa rajo. Hope. Waayahay first marka hore my name is magacaygu waa Khaire aan kala dhigno first. waad oran kartaa firstly marka horena waad oran kartaa my name is magacaygu waxayga weeyay name is magacaygu is Khaire waxa weey isna waxa uu taagantay waxa weeyaan bay noqonaysaa ama ay tahayba Khaire anigu was born waxaan ku dhashay in Hargeysa gudaha Hargeysa and I was born in waxaan dhashay 1988 and I grow up waxaan ku koray here halkan. I am anigu single keli baan ahay hadda anigu ma yihi laakiin keli modern keli baan ahay. I'm married. I have a son I live in waxaan ku noolahay Hargeysa and I live in with waxaan la noolahay my parents waalidiintayda. My family is an extended family. We're family ballaaran, qoys ballaaran. We are now living together. Waxaan si wada jir baan ku wada noolahay my grandfather, awowgay and my grandmother and ayeeyday. My grandfather, awowgay and grandmother iyo ayeeyday. My father, aabahay and my mother, hooyaday. Also xitaa I have 4 brothers. Waxaan haystaa 4 inamood oo walaala and iyo 3 sisters. And I have 5 cousins. waxaan haystaa 5 inaadeer ama ilmaabti. But laakiin I don't have my uncles. ma haysto adeer badan. anigu also xitaa have waxaan haystaa 5 aunties shanido. They iyagu living waxay ku nool yihiin Bro. Second waa marka xiga. Second iyo waxa walaala first waa marka hore. Second waa marka labaad. Waadi fahanti. Second marka dambe ama marka labaad. I am anigu student waxaan arday. I am anigu learning waxaan bartaa Englishka anigu learning waxaan bartaa Englishka at waxaan ka bartaa Abrar College. I am anigu wake up
waxaan kacaa ama kacaaba ama kacayba early subaxa. Anigu brush waxaan cadayaa my teeth ilkaha. And I take waxaan qaataa my ablution weysadayda. I go to waxaan tagaa to mosque masaajidka and I pray waan tukadaa deer halkaa. After that kadib I return waxaan kusoo noqdaa my home guriga and I eat waxaan cunaa breakfast quraac and I prepare waxaan isku diyaariyaa my schoolkaygaan isku diyaariyaa. I collect waxaan gurtaa my school stuffs agabka schoolkayga books sida qalinka buugo kale ama buugaagta aan biinsi qalimaanta. And I put on waxaan gashadaa my uniform dresska schoolka kale. And I anigu go to waxaan tagaa to my schoolkayga as sida to learn aan u barto my subject maadada. My favorite subject maadada dookhayga is computer science because maxaa yeelay taasi my hope waa rajadayda. Waa salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Channelku waa channelkiinii, subscribe-ka iyo comment-iga iyo like-tuba waa dhinaciina.